جمال جبيه تاس حسوين وبالله هذا جمال جبيه لما جمال جبتاله نين جسور وجبيه نين جهاد وجراه وهيك راح جمال عبد الناصر جمال كان وأنا قاعد مودوين كان كل نلا بودوين كان إلا سروتي كل الودوين كان نيجي بحشواي ما بعد ذلك نيجي قاب كان مقالة أوكي رواي نين نواكراه إنسان ودي استماع gurigiis hortiisa la dhisay meesha fiyaasa liibra loo bixiyo dadka meedka inay ka qaataan la rabay horteedii aba laga dhistaba ayaga haba sheegi way hadda ma hadli karaan hataa maxamed sheekh jamaal cabdullaahi oo ku magac dheeraa jamaal jabiye wuxuu noqday duqii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed oo ay yeelato magaalada Muqdisho sanadku markuu ahaa 1956 sheekh jamaal waxa lagu xasuusan karaa maamulkiisii iyo howlihii uu qabtay jideyntii wadada ceelgaab ee aada xarunta Afisiyoni taasoo cabirkii dhulka iyo wadooyinkii ay qasabtay inay guryo badan jabaan waana taas mid ay ugu baxday jamaal jabiye sidoo kale wuxuu abuuray xaafadihii xamar jajab iyo waabari oo markii dambe degmooyin laga dhigay xilligii gumeystaha Talyaaniga ee midab kala sooca uu ka waday meelihii uu maamulayay maxamed sheekh jamaal wuxuu noqday ninkii ugu horeeyay ee marahalka loo yaqaan Koraaja del Sud oo ku taala degmada Xamarweyne oo markaa aan loo ogolayn inuu halkaas maro nin Soomaali ah sanadku wuxuu ahaa 1954 wuxuuna kor u taagay labadiisa furood ee gacanta midig oo uu la jeeday guul ama geeri gumeystii Talyaaniga wuxuu xabsiga dhigay maxamed sheekh jamaal isku daygii uu isku dayay inuu maro halkaas waxaana la xiray 3 bilood talaabadii uu ku dhaqaaqay maxamed sheekh jamaal waxay ahayd mid u horseeda Soomaali kale inay ku dhaqaaqaan oo ay wadadaas maraan iyagoo dhamaantood guul ama geeri ku haya أحمد محمد أمين الله الشيخ جمال وحاوه وحادوقي وهرية مقدشو تاريخ سي أواني أبي يشيعي وهو مجلس جمال اسمه محمد جمال جبيه جمال جميل وعلى قومه عابي ودوين كان موجودة ودوين أنتوا بعد مدة بوندة مدة أنسلوت مرتا ودوين كاس أسا بس ما فاهمينه ماشان أو تنبلخ ماشي اللي يلا نيك جبيه أسواء ساسة هو مقع بعد جمال جبيه وبري مدينة نيك ديجان أهان نيك هو أساسي أسواء فاهمينه حافظنا كأسكورك ماشي هذا أسواء الكوستات نيك كلا أساسي أسواء إسكدا تاريخ أولي هاي إن لحوس عمل شيء وحد اللي إسكدا دوان إن جورجي ودجنا أو أي كل ولاين هذا تفيرتي سي أما ضدك إسا كفر عمي إن الجهرجو يدرب جان آت كوين جن عسيدي يريرا أي كل هاي ماشي إن لجرا هدي قف كل أنت إن اسم جوري كساري كريم وحصل أوصي درن حتى إن عيل كبيها أي كعب جيران لا عصي أو دبعتلاس طبعا أي لنوليين وحين شاغان إن طبعا أرنتن أي دعدي مركي ودقاها قدومي هوري قبل كبنادر عمر محمود عمر فليش horta waxaa nasiib dare ah duq magaalada Muqdisho ugu horeeyay gurigiis hortiisa darbi weyn aad u weyn oo aan la koobi karin hata cabirkiis in lagu dhiso xaafadii dib weyn aad u weyn lagu qabaa hadda daraad dhow maama xaafadda kamid ah dhimatay wallahi saan ku bixin ilaaha u sheegnaa waxa waaye meel baawurka soo galay male waxa ba dhici karo dib ka kici karo xaafadii ma fahmino dib sidoo soo gal meel uu soo gali karo male دربيغان والله آد دب أن وقبنا هذا نهاي dadka ku nool xaafada xamar jajab khaasatan ceelgaab halka deyrkan lagu wareejiyay waa barxadii caanka ahayd ee Piazza Libero oo ku hortaala guriga duqii hore ee Jamaal Jabiye waxay ahayd marinka kaliya ee u furan xaafada buurkan saaran ee loo yaqaan Shaneema Afrika sidoo kale Piazza Libera waxay madal risq ay ka helaan u ahayd boqolaal qoys inta uusan dhismahan ku wareejin gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Umar Filish kuwani waa Maxamed Carab iyo Cabdullaahi Maanjo oo kamid ah dadkii xarumaha farsamo ku lahaa Piazza Libera amal ay horta hal maalin meeshan anaga nooga gabagabay waa igrata rumalayna anagoo meeshan ku ganacsanayno oo ku nooleen anka xataa nimayo meel ka raasada lama aanan dhigin kuteenarkayga waa u jeedaa hadda meeshaas wasaqdaas u dhex yaala hal sano wasaqdaas ugu dhex jira anka xataa degmo oo tiri warniyo saan ma ahane war meeshan saan ilaa hadda ma aaneen walaalkaali dib weyn ay nuwaysaa meesha wallahi wuxuu ku tooriyay kulay waa la dhisay waxa maanta oo meesha wax lagu qabanayna ma arkin kulay dadkii hore ugu shaqeysi jireen oo geereyshidan ka shaqeysi jireen dhamaantood dhan
way macnaha way ka wada haajireen wax joogo ma leh hada albaabadan dhan waa wada xariyin hadartin waa arki kartaan albaabadan maxamed sheekh jamaal cabdulaahi oo ku magac dheeraa jamaal jabiye wuxuu ku dhashay magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose sanadku markuu ahaa 1906 wuxuu waxbarashadiisii hoose dhexe sare iyo jaamacadba ku soo qaatay dalka Talyaaniga oo waaga ahaa isticmaalka dalka haystay maxamed sheekh jamaal cabdulaahi wuxuu ku geeriyooday magaalada muqdisho sanadku markuu ahaa 1978 17 bishii 6 waxaana lagu aasay deegaanka Gandarshe ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose.